بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته magacayga waa Cantar Said Xuseen waxaan soo wadnay barnaamijkeena High Daggies Accounting maanta casharkeena wuxuu noqonayaa casharkii 6aad maanta marka waxaan rabnaa in aan uga hadalno wax loo yaqaano financial transaction wuxuu yahay ayaan fahmaynaa طبعا markii aan leenahay financial transaction waxay noqonaysaa dhacdadaas oo si toos ah u saameynaysa shirkadda hantida ay leedahay amba deynta lagu leeyahay amba qoladii maalgashteen maalgelintooda ay si toos u saameynaysaa waxay ka bedelaysaa dhacdadaasi طبعا dhacdada waxay ka imaan kartaa amba gudaha shirkadda ay ka imaan kartaa amba banaanka shirkadda ay ka imaanaysaa labadaba way ka imaan kartaa marka waxa muhiim ah dhacdadaas dhacday hadii aan rabno in aan ku sifeeyno inay tahay financial transaction amba dhacdo saameynaysa shirkadda waa in ay marka wax ka bedeshaa hantida shirkadda ay leedahay waa inay wax ka bedeshaa amba deynta lagu leeyahay oo dadka banaanka deynta ku leeyahay shirkadda inay wax ka bedelayso amba maalgelinta qolada iskala shirkadda in ay saameynayso dhacdada marka saddexdaas inay saameyso ayaa muhiim ah isla markaasna dhacdada waa in lagu la diiwaan geliyaa oo shirkadda ay diiwaan gelisaa dhacdadaasi isla markaasna akoonada shirkadana ay ka muuqataa oo dhacdo saameynaysa saameyn toos ah leh oo shirkadda ku leh waa inay noqotaa waxaana muhiim ah in dhacdadaasi loo qori karo qaab lacageed in loo qori karo oo hore waan usoo aragnay conceptiga inoo sheegaya dhacdo kastaba waa inay ahaataa mid xadigeeda leh oo qaab lacag ahaan loo qori karo lacagtay rabta ha noqoto taas ay marka waxay noqonaysaa wax loo yaqaano financial transaction ayuu noqonayaa waxaa kaloo jiro wax loo yaqaano non financial transaction ayaa jiro haddaba non financial transaction waxay noqonaysaa kan hadda aan kasoo sheekeynay dhacdadii saameynaysa shirkadda hantideeda bilcagsigiisa ayuu noqonayaa oo dhacdo waxay noqonaysaa marka aanan saameynaynin shirkadda hantida ay leedahay amba deynta lagu leeyahay amba hantida ay maalgashteen dadkiis kale shirkadda ma saameynayso marka taasi ayaa marka waxay noqonaysaa marka in uu yahay dhacdo sidoo kale la soo darisaysa shirkadda ay la soo darisaysaa waxaa marka tusaale ahaan ayaan kugu soo qaadi karaa in shirkadda buwaagteeda lagu qoro customer cusub ama macmiil cusub oo aan hadda nagu soo biray ayaan waxaan rabnaa marka in aan ku qorno shirkadda buwaagteeda ayaan ku qoraynaa oo waxaan ku daraynaa liiska amba dokumentiga macaamiisha noogu qoraya dabcan waxay noqonaysaa marka even ayaa dhacdo ayaa dhacday laakiin dhacdadaas maahan dhacdo qaab lacageed aan qori karno maahan waa qof just informationkiisa aan ku qorino buwaagteena ayay noqonaysaa oo warbixintiisa aan iska sii qaadanayno taas marka ma keenayso in ay wax ka bedesho hantida shirkadda ay leedahay amba deynta lagu leeyahay amba maalgelinta ay samaysteen qoladani ma keenayso inay wax ka bedesho oo ma dhaheeno qofka macmiilka lacag ayaan ku yeelanaynaa bacdama aanan weli waxba aanan ka iibinin marka ilaa hadda waxba kama iibinin laakiin waxa waa warbixintiisa ayaan ku qoranay buwaagta marka waxay noqonaysaa non financial transaction ayay noqonaysaa haddaba haddii aan markaan aan ka sheekeyno inta yar hadda aan soo aragnay qaabka marka accounting systemka ama habkeenii accountingka oo la macaamilayo sababta accounting systemka waxaa soo galayo laba ayaa soo galaysa laba dhacdo ayaa soo galaysa dhacdada ugu horeysa waxay noqonaysaa financial transaction ayay noqonaysaa oo ah dhacdadii aan qabanayni oo amba systemkeen accountingka soo galaya ayay noqonaysaa taas oo saameynayay hantida amba lacagta lagu leeyahay amba maalgelinta ayuu saameynaya marka accounting information systemkeena ayuu soo galayaa tan labaadna waxay noqonaysaa non financial transaction ayuu noqonayaa sidoo kale asagana wuxuu soo galayaa accounting systemkeena ayuu soo galayaa haddaba labadaas markay soo galaan accounting information systemkeena amba accounting systemkeena markay soo galaan accounting systemkeena wuxuu isticmaalayaa process ayuu isticmaalayaa saan hore ka soo sheekeynay wuu process gareynayaa wuxuuna ka diyaarinayaa wax loo yaqaano ribooro ayuu ka diyaarinayaa ribooradaasa marka waxaa loo gudbinayaa stakeholderskii dadkii loo yaqaanay oo aan kasoo sheekeynay ayaa loo gudbinayaa qof kastaba qadarkiisa iyo baahidiisa ayaa loogu jaangoonayaa oo riboorka ayaa loogu gudbinayaa dadka qaar amba stakeholderska qaar waxay rabaan
warbixin qayb kamid ay rabaan qaarkood waxay rabaan hal nooc warbixin ay u baahan yihiin qaarkood waxay u baahan yihiin warbixin faahfaahsan ay u baahan yihiin marka cashirka hore ayaa uga soo hadalnay noocyada stakeholderska amba userska oo isticmaalaya riboorada uu soo saaro accounting information system keena haddii marka aan kusii socono oo markaan aan ka sheekeyno farqiga u dhexeeya data iyo information bacdama aan rabno in aan isticmaalno database accounting waxaa lagama maarmaanaya inaan kala fahamsanayo wax laga wada data iyo waxay tahay information waxay tahay hadhow markii aan systemkan computerka isticmaalayno dabcan waxaa noo imaanayo warbixino badan ayaa noo imaanayo data badan ayaa helina datadii marka waa inaan fahamsanaa marka horeba waxay tahay si hadhow aan uga soo saarno information dabcan datada waa facts waa xaqiiqooyin jiro waa wax shirkada la soo darsay waa waxyaalo dhacay waaye kaas oo weli aanan la process garayn oo weli aanan la kala saarin oo aanan weli laga soo saarin wax dhadhamayo weli lagama soo saarin oo wax micno u sameynayo qofka isticmaalayo reportkeena amba rabo qofka hadhow inuu isticmaalo aanan weli wax u dhadhamayo laga soo saarin marka datada waxay noqonaysaa dabcan waa warbixin la soo gaadhay waaye laakiin weli sidii ahayd maanan u kala saarin oo maanan u kala shaandheynin si hadhow qofka aan u baahannahay inuu go-aan qaato uu hadhow go-aan oo u qaada lahay bacdama hadda data hadee qofka go-aanka qaadanaya sida maamulaha haddaa data leh raw data haddaa siino amba data aanan weli aanan systemkii accountingka soo marin oo warbixintii aanan lasoo habaynin haddii aan siino dadka maamulaha inoo ah dabcan wixii ka fahmayaan ayaa iska yar mana isticmaali karo marka waxa waa datada waa facts waaye laakiin weli ma gaarin in go-aan in qofka uu weli ma gaarsii karo datada ma gaarsii karto qofka in uu go-aan u qaato marka datadaas ayaa marka waxaa muhiima marka in loo wareejiyo information in laga dhigo haddaba marka information maxaa tahay marka information waa wax ku sababaya qofka isticmaalayo informationkaas inuu go-aan qaato go-aankaas marka ayaa wuxuu noqonaya marka go-aan faa'iido badan keenaya ayuu noqonaya marka qaarkood informationka wuxuu kugu sababayaa inaad waxba go-aanaada qaadanin ayuu kugu sababayaa tusaale ahaan haddii mobile uu reportkiisa lagu soo gudbiyay alaabta inoo taala baqaarka kasoo qaadba mobile Nokia 3310 ayaa 10 xabo ka yaalo dabcan waxaa laga yaabaa marka in aad u baahan tahay marka in aad dalabatid qaar badan inaad dalbatid oo 20 ama 30 kale inaad dalbatid marka informationkaas kusoo gaara ayaa wuxuu kugu sababayaa inaad samaysid dalab inaad samaysid oo aad dhaadid 10 xabo noo yaal intoosan naga dhamaan waa inaa macaamiisha marka aan qaar badan aan u keenaa oo 40 xabo kale aan dalbanaa si kala go alaabtan aysan noogu imaanin haddii marka report labaad lagu soo gudbiyo oo lagu sheego marka in Nokia maxaa la dhahaye 4410 camal in uu kaaga yaalo 100 xabo dabcan 100 xabo haduu kaaga yaalo hadda uma baahnid marka inaad dalab aad samaysid waa iska aamusaysaa shub ayaa leedahay taasaa marka waxay keenaysaa aamusnaanta naftigeeda ayaa waxay tahay inaad go-aan aa qaadatay marka informationka amba warbixinta dhabta ah waa midka kugu sababaya inaa ama talaabo aa qaadid amba inaada waxba talaabo aada qaadin oo aad sidaas aad ku aamustid haddii marka aan soo gaabino informationka waa datadii oo la process gareeyay waa datadii oo wax laga bedelay oo lasoo laga dhiga wax qofka uu fahmi karo isla markaasna uu si yaro fudud oo u isticmaali karo ayay noqonaysaa haddii markaan aan ka hadalnay informationka wuxuu yahay datadina waxay tahay aan kasoo hadalnay marka waxaan rabnaa markaan in aan aragno useful information macnaha warbixinta faa'iidada leh warbixinta faa'iidada badan qofka ku sameynayo maxaa lagu aqoonsadaa in warbixintan ay tahay warbixin faa'iido badan leh maxaa lagu aqoonsadaa maxaa astaamo u ah maxaa calaamado u ah useful informationka amba warbixinta faa'iidada badan leh maxaa calaamo dabcan waxaan sheegaynaa 5 qodob ayaan sheegaynaa 5tan qodob ayaa marka waxay noqonaysaa astaamaha lagu aqoonsanayo warbixinta faa'iidada badan leh
على أستانت وقرص وحين قرن relevance إنه يهاي إن وقصية قفك information كان لسينايا ووربحين تان لجو كينا وعيني هاتا وربحين هذيك قصيصة أم وربحين إن department كاجا قصيصة أم وربحين قصيصة جوان كأرتد إنا قادت هدي أو بانتا مرك ألعاب إنا سوق جديد وحاو بانتا ألعاب تكون على بقارك متكستبة أنت كاجت على إيمج عيسى إن أوجاتد قيمة يكون فديان سي مرك أدلب أو سميست هدي لجو كينا كورن ريبور كي معاميش هدي لجو كينا كورن هذا سوق جاي ريبور كي ألعاب تا إن أهشيت waxay noqonaysaa marka dib ayay noqonaysaa oo macaamiishani waxa way reportkiisu uma baahnid marka waa inay ahaataa marka warbixinta xisaabiyaha uu ku soo gudbinayo amba hadii xisaabiyta amba finance manager hata tahay warbixinta uu gudbinaysid qofka ka sareeya amba qofka u baahan oo isticmaalayo waa inay ahaataa warbixin markaas asaga uu u baahan yahay oo ka qayb qaadanayso go'aanka uu qaadanayo warbixinta marka hadii aysan u fududeynaynin in uu go'aan u qaato dabcan lama dhigi karo useful information تهذا لوات وربحين تواني هاتا مت وقت كجانجو أنا وين هاتا ووقت قالوا باهين ياي وإن وربحين تأسو قد بسا علذها والله هاجري مركا من ولا كانت السيستم كا أم بحسابات كا مركي لو سمينا جعنتا علاد وجو رسول هاجر وحد مركا حاجة وقتها وهدي معمولها وباهين ياي إنه هدا go'aan degdeg ah qaato laakiin ay go'aankiisa ku xiran tahay in uu helo warbixintaas marka waxa loo baahan yahay isla hadda in la soo saaro maana bil ka bacdi ama 2 bil kadib in warbixinta la siiyo si marka oo sidaas loo sameeyo inta badan marka manual systemka bacdama gacan uu yahay waqti uu baahanayo marka waxa jir wax loo yaqaan opportunity cost ayaa dhici jiray inta badan oo wixii loo baahan yahay in laga faa'iideysto iyadoo la isticmaalayo warbixintaas lagu soo gudbiyay ayaa meesha shirkadu ku dhaafi jiray hadda laakiin wixii dhan way isbedeleen technology-ga uu horumaray waxa la isticmaalayaa wax loo yaqaan computerized accounting oo ugu horeeya hadda programka aan baranayna oo dagies accounting warbixinta markii loo baahan yahay oo laga codsaday in warbixin aad daawacdid ilbarqsi ayaa ku daawacaysaa just muuskaaga la kilka ku siinaysaa iyo aqoontaada ay ku xiran tahay sida warbixintu wala soo bixileed oo daawici lahayd marka muhiim waaye in qofka go'aanka qaadanaya in uu si degdeg ah ama si dhaqso badan in uu ku helo warbixinta uu u baahan yahay markaas tan saddexaad waxay noqonaysaa marka accuracy ay noqonaysaa warbixinta marka qofkaani loo gudbinayo oo rabo inuu go'aan uu ku qaato waa inay ahaataa warbixin sax ah waa inay ahaataa warbixin waqtigeeda dhaaftana waa inay saxeen marka warbixintaani waa inay ahaataa warbixin laga soo qaaday shirkadda buwaagteeda amba xisaabaadkeeda laga keenay waa inay ahaataa waa inaysan ku jirin waxba qalado waa inay qaladyaal waa inaysan ku jirin warbixintaas oo warbixin inta badan la isku halay karo waa inay ahaataa hadii uu qalad ku jiro warbixintaasi dabcan qofkan go'aan qaadanaya ayaa wuxuu sameeynaa marka go'aan qaldan inuu qaato ay u badan tahay because of warbixinta loo soo gudbiyaa waxay tahay warbixin iska qaldan inay tahay marka waxay saameyn ku yeelanaysaa qofkan go'aanka qaadanaya go'aanada uu qaadanayo ayay si toos ah saameyn ugu yeelanaysaa xataa marka qaarkood waxa laga yaabaa inuu qaato go'aano meesha aan looga baahnayn amba go'aano very poor amba aad u liito inuu qaato ayaa laga yaabaa in meesha jaanisyo shirkadda ay ku dhaafan ayaa laga yaabaa hadii for example ay u soo gudbiska waran baqaarka waxa ku taalo Nokia 3310 shan xaba ayaa ku yaalo laakiin adiga waxa soo gudbisay inuu 50 xaba ku yaalo qalada sameeyso waay systemkaaga qalad uu sameeyay waay kotxab markaa soo gudbisid markuu maamulaha amba purchasing managerka amba ninka dalba alaabta markuu fiiriyo markuu arko inuu kotxab ku taalo dabcan dalab ma sameeyay hatta hadduu jaanis ku haysto in uu alaab si raqiis la ku iibsado oo Nokia 3310 qof iska iibinayo oo jaanis oo ku helo wuxuu dhahaa anaga kontar xabaya noo taala kuwan maxaan ku sameeynaa marka laakiin sida dhabta ah baqaarka markii la fiiriyo waxa laga yaabaa alaabtaas Nokia 3310 inay 10 xabo inay 5 xabo ay ka taal baqaarka ayaa laga yaabaa marka warbixinta ayaa u soo gudbisay ayaa wuxuu ahay inaccurate ayuu ahay sax meen qalad ayuu ahay marka wuxuu sababay in uu qofkii managerka ama purchasing managerka uu qaato warbixin warbixin markaas aan loo baahnay amba warbixin dhibaato badan hadhow shirkadda ku keenayso oo jaaniskaas alaabta la iibsan lahay oo looga faa'iideysan lahay shirkadda oo raqiis lagu heli lahaa alaabta ayaa meesha ka baxayso warbixinta marka waa inay ahaataa completeness waa inay ahaataa waa inay dhamaystirnaataa waa inay u dhamaystirnaadaa xisaabaadkeeda wax kastoo looga baahan yahay warbixintaas waa inay u dhamaystirnaataa waa inaysan ahaanin warbixin kala dhiman
haddii aad reportkaaga kusoo sheegtay alaabyada magacyadooda laakiin wixii yaal aada soo sheegin dabcan waxba micno ma soo kordhinaysa inaa alaabta magacyadooda aad soo sheegtid qofkan wuxuu rabaa in uu alaabta magacyadooda iyo wixii yaalaba inuu isku arkayo rabaa marka haddii aad soo kala reebtid marka warbixinta ma noqonayso warbixin dhammaystiran oo macno badan qofkan u sameynayso si uu go-aan ugu qaato tan shanaada ugu dambeysa waxay noqonaysaa marka warbixinta inay ahaato warbixin kooban sababna marka businesska wuxuu ka kooban yahay hararkii amba qeybo kala duwan ayuu ka kooban yahay xagga maamulka maamulo sare ayaa jiro qolo ku xigta ayaa jiro qolo ugu hooseysa ayaa jiro dabcan marka qaybta hoose markii laga socdo bottomka oo loo socdo xagga kore warbixinta markii sidaas ay u socoto qolada qaybta hoose oo maamulka joogo dabcan waxay u baahan yihiin warbixin faahfaahsan ayay u baahan laakiin markii aan kor usii socono warbixinteena aan rabno inaan gaarsiino maamulba maamulku ka sareeyo qoloba qolada ka sareysa markaan rabno inaan warbixinteena aan u gudbino dabcan warbixinteena waa inay ahaataa mid kooban oo macnihii ay u baahnaayeen dhan soo koobayso waa inay ahaataa taas ayaa marka ayaga u sameynayso warbixintaas u gudbinayso macno badan u sameynayso laakiin wax oo boqolaal waraaqadood aad ku daabacday waxba micno ayaga uma sameynayso dabcan shantan ayaan isdhihi karnaa shanta ugu muhiimsan waaye in uu informationka uu noqdo mid useful amba mid faa'iido badan ugu fadhiyo cidda isticmaalayso هذا عشر كان ما إن شاء الله تعالى أنت سأيام كسوق وقويننا أنت عشر كان عشر لمن أن كل من واحد إن كيتك يا سياسي نودقله سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته